tababarka xifdinta axaadiista oo soconayay muddo 22 maalmood ayaa lagu soo gabagabeeyay markaska Imaam Shaafici ee magaalada Burco kaasoo ay ka qayb galeen 50 arday oo aad u daayir waxaana ka soo qayb galay xidhitaankii tababarkaasi maamulka gobolka Togdheer xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco culimaadudiin salaadiin maamulka mu'assasada Al-Karam mas'uuliyiinta markaska Imaam Shaafici xubno ka socday shirkadaha Talasom Ilaysiya Iftin waalidiinta ardayda tababarka loo qabtay iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa ka hadlay goobta madaxa mu'assasada Al-Karam Sheikh Suleymaan Diiriye oo ka hadlay qiimaha ay leedahay barashada shariicada islaamku sidoo kale waxa ka hadlay madasha maamulaha markaska Imaam Shaafici Sheikh Yuusuf Maxamuud Diiriye Suldaan Sheikh Yuusuf Cabdi Cawad gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Mustafa Yuusuf Khalaf oo ka socday shirkadda Talasom Sheikh Albeledka magaalada Burco iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardayda tababarka loo xidhay waxaana ka mid ah hadaladoodii Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala inagu kulmiyay madashan barakaysan ee manbaca cilmiga shariicada islaamka ah dowradaas sanadkeedii shanaad aynu maanta khitaamkii u fadhino waxa weeyaan dowro sharciya oo marka waxa weeyaan daayarta la doonayo in ay qaadaan ama ay xambaaraan culumta shariicada islaamka ee sida awgeed waxa ay hore u soo qaateen 4 step oo hore oo kala wada jaada sida marka waxa weeyaan aqoonta iyo fiqiga iyo xadiiska iyo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo darajaad ah ayay qaadanayeen dowrkoodii shanaad bay maanta soo gaareen iyadoo marba marka ka dambaysa marka halkii ay marayeen looga sii qaado waxa weeyaan cilmigu kalaabaha lagu hayo weeyaan ee kalooxa ama xaashada ku qoran inaanu ahayn ujeedaduna waa dhiirigelin weeyaan waxaan u hambalyeeynaa dhalinyaradan yaryar caruurta ah runtii da'dooda aad u yaryar tahay ee xifdiyay mutuunta faraha badan leh ama waxyaabaha badan xifdiyay muddada yar kooban ku xifdiyay maadaama aad laabtii wax ku qaaday waxa loo baahan yahay inaad ilaashato oo markii loo baahdaba aad la soo baxdo waad ogtiin insha Allah waxa kuugu filan ilaahay qowlku yiri wal yastawi alladheena ya'lamuuna walladheena la ya'lamuun waxa weeye duruq iktisaab ilm duruqda cilmiga lagu kasbado waxa kamida wax la yiraahdo talaqi oo aanu ahayn wax la bawsado waxaad moodaa mu'assasada Al-Karam baa raashii maartay markaas Imaam Shaafici ayaa isaguna aad iyo aad u mudan in marka loo mahadnaqo oo dacwadda uu gobolka u hayana de loo yahay halka ay kaga jirto waxaynu u baahanahay in loo dhiso daayarta maraakis lagu xareeyo lagu xifdisiyo cilmiga iyo kutubtii caruur da'doodu aad u yaryar tahay oo xifdiyaya wax kamid ah wixii ay bareen macallimiintoodii waliba xifdiyay nashaad iyo qurux ka muuqdo waa farxad shucuurteena kicinaysa gabagabadii ardaydii kaalmaha hore ka gashay tababarkaasi ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan cali daahir maxamed boos TV caalamiga Universal Burco